maanta reejimada farxadooda inaan maanta halkaan isugu nimaado madal Soomaaliyeed oo lagaga arinsanayo mustaqbalka aayaha xaaladda iyo guud ahaan danaha Soomaaliyeed gaar ahaan isteediyada halkaan fadhiya oo isleeyahay Soomaali way ka kooban tahay wax yar baa ka maqan marka laga reebo hooyadii oo magaalada ah ay tahay xukuumadda federaalka inaan maanta caawa ay halkan fursad loo tahay oo idinka mahadcelinaya ajiibitaankii ama ogolaanshaha ogolaatay inaad timaadaan sida sharafta aad ku timaatay oo aan idin leeyahay ku soo dhawaada gurigiinii ku soo dhawaada shaygiinii ku soo dhawaada deegaankiisii maamaadii hore waad garanaysaan Ismaaciil maxay kistaa Ismaaciil kistaa markaa taa waxaan leeyahay hadda kistaa mee hoygii si walba aad baan u faraxsanahay ajiibitaanka iyo maantikiin iyo safarka dheera soo marteen waa idinka mahadceliyey aad waa idinku soo dhaweeyey intaa ka bacdi waxaa laga yaabaa caawa maanta inay oo noloshaani furmayso in aad loo soo fiirinayo oo dareen badan iyo fiiro badan ay jirto oo meeshaas maxaa ka jira qalad maxaa ka soo baxaya maxaa ka jira waxaan umaleynaa ciddan dhegeysanaysa inta fadhida oo u sheegay meeshaa khayr baa yaala shar ma jiro tashi Soomaaliyeed baa yaala Soomaali waa ku tashanaysa waxay leeyihiin wax constitutionka iyo dastuurka uu siinaya kaga tashanayaan wax dhibaato oo maanta ama xaalad ku beegan ama dhib jira ama cid kale isku amiin maaha haddaan wax yar ka warbixiyo intaana taariikhda aan rabo inaan ka hadla ka arko madashan aan maanta shirayno waxaan u malaynayaa mar hore soo bilaabato inaan isu nimaadno kulan isugu nimaado isteediyada anugu infact qurbajoog iyo laakiin saaxiibadayda ah marka waxaa leedahay adduunka dhowr iyo labaatan wadana federalism sidaa looga dhaqmo ololba waxay leedahay forum ay leeyihiin dowlad goboleedyada isteediyada gobolnada magacyada beentadha qolyaha yaqaana sheegsheegi kulankaas cabdulliga waa soo jeediyay qurac forum waxay leedahay samaysano aan isugu nimaado ma aha deegaanada oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu gaayay weliba aan u malaynaya sanad iyo ka badan kahor waan soo jiitamayno korba marxalad baan soo maraynay mid aan isugu iman lahayn waa tii sababtay waxay nolosha NLF-ka nolosha Somali Forum madaxweyne xasan sheekh sanadihii dambe ku soo waday xaaladda suqada kumeesha ku socotay kumeesha maanta waxaa keenay inaan isu wacanno oo isu yeelno oo wada hadalno oo asbaabo badan iyo xaaladaha jira wadanka yaa sabab u noqday waddankan marxaladuu soo maray markaan ka soo qaado xorriyadda 1960 baan qaadanay 9 sano oo dowlad rayada oo doorashooyin soo martay oo ay ugu dambeysay allaha naxariistay doorashadii lagu dilay madaxweyne cabdirashiid cali sharmaarke uu ugu dambeeyey xilligaas waa la yaqaanaa taariikhdeenahay meeshay martay waxay ahayd iyo xaaladda kala guurka ahayd ee waddanka iyadoo isticmaal laga soo guuray waxaa laga soo guurayna uu ahaa dowladnimo aan qaadanay oo lagu cusbay oo xisbiya la ahaa oo la iswatay oo garanaysaan waa dadka qaarkood markii aqoon iyo waxa loo baahda rag badan xisbigood iyo deegaanka aqoon inay yidhaahdeen oo lagu soo kala tegayo taariikhaha cabdirasaaq oo kale uu ahaa inaan garanaysaan aadan cabdi iyo qaabka ay usoo dhaqmaya raggaas inuu u ahaa macallimiinta iyo dowladnimada hogaaminteeda oo iska wax marxalad bay soo gaartay sagaalkaas waxaa ka dambeeyey maxamed siyaad mas-uulka ka ahaa oo aan odhan karo raagitaanka kursiga wuxuu leeyahay sidiisaba cilad marka laga soo tagay raagitaanka kursiga iyo xaaladda waddanka isbeddelku samaynayay marxaladihii aan soo maray taariikhdii kacaanka waqtiyadeedii hore qof kasta wuu garan karaa waddanku
waxqabadkiisii iyo siduu ahaa iyo sida la soo maray iyo taariikhdiisa ay ahayd waa la garan karaa laakiin dhaqanka aan garanaynaa wuxuu yahay shay waliba hadduu raago marka dambe raad buu si u sameeyaa laakiin waan garan karaa dowladdaasina maraaxishay soo martay iyadoo dagaallo ay gashay xaalado badan ay soo martay way lahayd iyaduna taariikh oo maanta nin waliba wuxuu leeyahay wax lagu xusuusto oo taariikha oo la odhanayo maanta war Axmed Sheekh Maxamed Islaan Madoobe tolo waqtigii uu halkaa joogay maxaa taariikha uu kaga tagay iyo muxuu ugu yimid iyo maxay noqotay iyo raadka qof walba wax la isweydiinayo haddii la isxaqiriyo haddii la isxaqirinba taa marxaladeeda leeyahay markaa iyadu waxaan soo maray burbur iyo halaag aan leeyahay markaan dhabta u hadlayo kumaysan imanin gacanta Soomaalida ee waxaa nagu jiray gacmo kale oo badan oo dheeraada oo waxaad ku garanaysaa sida aan isu burburinaynay iyo waddanku siduu u burburay maynan ahayn si la jecel la yeelay xataa jabhadihii baxay hadday iyagu intay yimaadaan wax qaban lahaayeen kacdoonka la abuuray oo nooc intifaada shacbiya ama kacdoonka noocaasi waxbuu system buu bedeli karaa laakiin dumin inay keentay in wax kasta oo la cuno oo waddankao dhan dib u burburo aan bilownay waxa ugu horreeyey marka laga soo tago hogaamiye kooxeedyadii iyo isku yabyabkii faraha badnaa ee jiri jiray dowladihii ugu horreeyey ee TNG-da la odhan jiray dowladdii ee Jabuuti shirkii lagu qabtay oo Cabdilqaasim madaxweynaha laga soo dhigay oo markaas la odhan karayo ma loo wada dhanaa mise looma wada dhanay maya laakiin waxay samaysay iyadoo markaa hogaamiye kooxeedyo xoog badanna ay jiraan bal raad meel wax laga qaadi karo oo warbal institution maxaan samaynaa xagee wax ka bilowna waxaa lagu guulaystay wuxuu ahaa in baarlamaan la dhiso oo see loo soo dhisaya Soomaalidii laandheer aan ahay laangaab baan ahay gaalgaaldhale baan ahay sidan aan ahay wax badan bay martay waxay noqotay in la yidhaahdo waxaa la yidhaha 4.5 aan keeno bal dadkii si ha lagu keeno ha la helo dad intay fadhiistaan tashada oo isugu yimaado meesha oo wax uun keeni karaya marxaladeeda ay lahayd dad badan baa ku shidnaa hogaamiye kooxeedyo aad u awood badan baa jiray oo lagula daaranayay qolyaha kale laftirkooda mayna shiddo yareen taasi waxay abuurtay inay ilaa xad wixii ay dhaqaajin kartay soo dhaqaajiso waxaa laga dhaxlay system jiray markaas waxaa timid dowladdii TFG-da oo iyadana allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf dowladdaasi waxay iyaduna sii dhaqaajisay inay baltallaabo nidaamkan federaalismka ah iyo sidii loo qaadan lahaa iyo iyada iyo tii ka dambeysay isku darkii baarlamaanka faraha badnaa iyo Sheekh Shariif sida bal federaalkan iyo systemkan in la qaato noocaa loo dhaqmo iyo waxay noqotay iyaduna tallaabadii ay qaadaysay dowladdii ka dambeysay oo markaa ka baxday kumeel gaarhka ahayd ee hadda ugu dambeysay waxay iyaduna bilowday oo ay meel gaadhsiisay inay dhaqan geliso federaalkii la qaatay federalismkii inay dhaqan geliso oo aan isleeyahay waxay kala soo kulantay sacab iyo cuquubaad iyo dhibaato fara badan hal jirtana way jirtaa Soomaalida markaan xaqiiqada ka hadalno inta badan waxaad moodaa waxa aan sheeganayno iyo waxaan rumaysanahay waa kala laba nooca markay noqoto waxaa la odhan karaa siyaalaha qaarkood dadku manifaaq baa ku jira say wuxuu jiraan qof kastoo Soomaaliya federaal baa laga hadlayaa hadda dowladdaas Xasan Sheekh waxaan u malaynayaa muddadii 4 sano ahayd hal sano rafaadka ugu badan Jubbaland buu ka haystay dagaalkii ugu adkaa Jubbaland iyo dhismaheedii iyo yiri koonfur galbeed iyo 6 gobol xaggan u jiid waxay galeen mashaqo iyo wax aad u culus oo markaa la akhriyi karayo qof kasta marka hore uu imanayo waxa uu sheegaya iyo marka dambe ficilku ay kala yara duwanaanayaan laakiin waxaan isleeyahay dowladdaasi waxay markii dambe fahantay war waddankaani federalismkan iyo waxaan la qaatay amay fiican tahay in baristeedyadii intii la dhiso tallaabo hore loo soo qaado oo la isu yimaado oo
tallaabada la qaada ay dhaxalisiin karto bali wadanku meel marka ugu dambaysa meesha ugu fiican uu tegi karay waan uga mahad celinayaa 2 sano iyo 3 sano u dambeysay waliba uu aad waaqic u ahaa xukunkaasi inay wax badan oo ay xaqiijiyeen inay jirtay oo garanaysaan marxaladaha qaarkood ee soo maray adaygooda iyo culayskooda inta uu leekaayo sidoo ah waxay ku guuleysteen ilaa markii ugu dambeysay Jubbaland ay aasaasaan koonfur galbeed Puntland baa jirtay galmudug iyo Hirshabeelle u dambeysay taa waxa iska lahaa guusheeda dawladii uu hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo carcar badan ay markii hore qabtay aan ku leeyahay hal sano anaga ka luminay ma anaga ka lumin iyaga naga lumin say doontaan noqoto dhinacay doontaan noqoto laakiin waan iska luminay yana waan nagu mashquuleen anana waan ku mashquulay federaalka anu intaan ka aqaano sida dadku igu sawireen qoriyaha aad u yaqaan aad u aqaan meelaha federalismka maana tagin waxaa la igu yiri waxa weeye in la kala badbaado haddii meel wax ka dhacaan sidii xamar wixii inuu qabsadeen inuu qabsadeen warbal haddii xamar wax haysto jawhar lagu badbaado wadii jawhar wax gaaraan cadaadaan ku badbaado haddii cadaadaan wax gaaraan aan garow tagno garow hadii wax noqdaan aan bay dhawan nimaadno soo sidaas uma oo wixii hal mar iyo israac maanta la ismirti geliyo oo meeshii wax ka dhacaan meesha kale la aadi karaa la aado macnaha anigu markaan soo ururiyo warka Soomaaligiisu inta uu noqonayo ma jeceshahay iyo ma jecelid waa wax kale waan ku khasbanahay waxaan waan sheeganay dastuur baan ku qoranay qodobaan leenahay waxbuu loo yahay waxa weeyaa inaan intaan wax sheegano haddana wax kale ku dhaqano waxaa ka geyssan inaan marka hore ninaano maya ma rabno maanta dawladda waxaa leeyahay jamhuuriyadda ma aha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya ma aha waa jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya soo sidaas ma isteediyadana dastuuriyan bay u asaasan yihiin sidaas lagu aasaasay waliba markaan dhab ka hadallo maanta markaan wadanka xaaladda uu ku jira fiirino intan isteediya hadda fadhida marka laga reebo Soomaaliland oo geedi dheer inooga baahan iyo markaan Soomaaliya ka hadlayno intan maanta marka laga reebo mas'uuliyad inta leeg baa baaqi aad u malaynaysaa inta leeg baa maanta intaan ku dhacaysa oo mas'uuliyad oo wax shay dhab ah mas'uuliyadda in la isla qaato oo wuxuu sidoo yahay loo wada qaato oo wax meel looga wareegan lahayn federalismka marka aan qaadanay iyo sidoo yahay waxaan rabaa inaan idin sheego shirkan caaw aan haynaay waa mid uu qorayo dastuurka federaalka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waa xuquuq dastuuri ah oo qodobada 48 faqradda koowaad A iyo B 51 A iyo B 52 faqradda labaad iyo qodobo badan oo kale haddii dib loogu noqdo kulli ay sheegayaan shirkan iyo caaw wuxuu ku saabsan yahay ma aha marka ajanda gooniya iyo dan gaara iyo inaan wax duminno waxaan halkaan u fadhinaa inaan wax dhisno wax hagaajino Soomaalinimo keeno la isula yimaado aan la kala xishoonno shayga xaqa laga wada hadlo aan la isceebaynin oo sidaa la yeelo waxaan rabaa inaan idin sheego madashaan dawada ay leedahay ama aan leenahay wadankan ruux khilaafsan ma jiro soo wax badan oo la isku khilaafi karaa ma jiraan soo ma jiraan hadda waxyaalo banaanka media la isoo gudbiyo lagu kala hadlo kee inoo fiican inaan inagoo Soomaaliya intaan fadhiisano oo maanta anaga dawlad goboleedyadii intaan isu nimaadno wada fadhiisano aan inaana wareedhe xagee wax laga jiraan maxaan ku khaldanahay waxaan ku khaldanahay marka dastuurka la soo qaado buuggii yaraa A B C D ana waan ku khaldanahay B D F G dawladda ku khaldan laba afar loogeeyay 5 maaha waa 7 aan isweydiin aan wada hadalno waxa jira aan isweydiin aan xisaabtano waraan isku qancina waxa dhexdeena maanta yaal ee laga hadlayo hadday taasi dhicweeda maxaa dhacay Kampala nageeya Brussels aan tagno Addis Ababa tagna Nairobi baa ka dhow Djibouti baa xigta soo intaa ma waxaan ooyaan iyo sheeko kale inaan meesha ka bilowno intaasi inayna dhicin baa waxay keentay
kow inaan annaga isu nimaadno stadium oo goosh aan u dhigano oo aan isweydiino xaqa aan leenahay iyo ka dawladdu ay leedahay oo aan qodobada dastuurka dhexdiisa ku jira lagu dhex shaqeeyo oo dawladda iyo institutionadeeda iyo se u shaqeeyaan iyo wax badan aan isweydiino oo annaga khaladkaan leenahayna aan qaadano kale nagaga khaldan yahayna aan qaadano xukuumaddii madaxda xukuumaddana intaan isu yeedhno ama aan u tagno ama aan loo yimaadeen intaan wada hor fadhiisano iyadoo aan coach uuna jirin oo lalahayn katin iyo hebelow fadhiista iyo international community annagoo soomaaliya intaan isweydiina aan idhaahno war maxaa sida xaggee wax naga jiraan uma soconno inaan dawlad dumino uma soconno inqilaab uma soconno dhibaato inaan geysana waxaan u soconnaa oon ka shaqaynaynaa maslaxada iyo xalka iyo wanaagga waddankani waxa ay ku jirto waayo waxaad ogaataa inta shanteedana berri waan baxaynaa qof waliba wuxuu la yimaada taariikh baan qoraysa maanta waxaa laleeyahay cabdullaahi ciise daakhiliyadii sidaanuu soo yeelay allaha u naxariistay aadan cadde waxaanuu soo sameeyey hebel wuxuu ka tegay waxaan hebel sidanuu hebel shar buu ahaayo dhibaatadan uu geystay in la yidhaha markaa gogol baa kismaayo la dhigayo ku inkaarqa axmed madoobe la yidhahdaa dhigayo waddankii buu kala weylweyl kama raacin maya umaanaan dhigin sidaas saaxiibadayna umaynsaniman intaasi waxay u yimaadeen wanaagga iyo waxqabadka iyo waddankan xaaladda uu ka jiro inaanaan gacan kale oo sheeyo ku wada hadlin tu aan anagu lena aan ku wada hadalno maanta aniga cid kismaayo iigu amarti ma jirto gogol baan dhignay laakiin yaan ka xiga waa dhulkiini waa Soomaali marti laguma aha kaliya waa loo soo kala horeeyay wixii uu karaamka Soomaaliya lagu ogaa yaan u sameynayna dhaqankii caadii Soomaalida sidaas taasaa marka waxay sababaysaa baahida anagu aan qabno inaan ku waxaysano waxaan rabaa dawladda federaalka inaan u sheego dawladda federaalka mas'uuliyadda saarani manzilatu abbay taaganta waa aabihii bay taagan yihiin iyagaa waddankan mas-uuliyadda ka saaran tahay amaam allahi wax badan baa laga weydiin doonaa laakiin waa nasiib darro hadday garan waayaan mas-uuliyadda saaran iyo waxa ay tahay oo ay si kale u mashquulaan ama ay ku shaqeeyaan waxa uu yahay mandatekoodu iyo shaqadoodu waxaan ahayn inay rumaysan yihiin oo caddayn laayihiin iyaday dhibaato ku tahay waxaan rabaa dawladda inaan u sheego kulankan shar ma aha soomaalina shar uma aha dhibaato soomaaliyeedna kama shaqaynayo dawladdana wuxuu u yahay shaad qofku yaa ugu fiican qofka waxyaalaha nabigu bari jiray waxaa ka mid ah bidaana saalixa qofku inuu la talin fiican leeyahay haddii aniga maanta axmed ahaan kuwa ila talinaya ay igula talinayaan wallaahi sheekh xuseen furraa tahay nebigaad laba kala tirsaan dhaqankii nebigaad leedahay ma adigoo kale laguma arag maxaan isu qaadanaya inaan duulayo oo wax iga maqani ayna jirin oon cirka u boodayo waxaa laga yaabaa tallaabadan qaada xumaan kale inay noqoto laakiin marka inta laga fadhiisto cabdiweligaas gacanta qabtula wareer ninkaagan madow waxaanaad ku hadlaysa sax maaha meeshan kaama jirto niyo wejiga sida muraayadda markaad isku fiirinayso qofka walaalkii muraayad buu yahay halkan wax cad baa kaaga yaala iska tirso kuma yidha war dawladda annaga muraayadeedii waxa iyagu inay nasaxday leeyihin annaguna inaan saxnaan leenahay kulligana aysa sixid mudan waxaan ka hadlaynaa war waxaan insaan ma yahay waxaan ka hadlaynaa war institutionna iyo maamul iyo heer dawladeed iyo baarlamaan iyo waxbaan leenahay maxaa yaallo maxaa khalado maxaa saxsano maxaa kale war inaan isu nimaadno anagu isu yeedhana waxaan ka doorbidana in cid kale loo yeedho war inaan miidiyaha isaga hadallo on isaga jawaabno oo la yidhaha fikirkaas oo statekan uu yidhaha kan oo kana ka yidhaahdo oo xukuumaddiina ay sidan tiraahdo oo marka dambe ay ka dhacdo waxa ugu dambeeyahay maalintii la tagay in la yidhaha sidanaan yeela iyo sistan baa hebel la dumiyey kanaa la dhisay iyo kanaa ridnay iyo makhaayadaha la isugu tagay ceeb iyo dhibaato unbay noo keenaysaa waxay u baahan tahay arrintaasi oo aan ka hadlayna oo aan gudbinayna waxa aan raadinayna inay tahay inaan nahay bidaana saalixa kama mujaamalaynaya waxa aan qabo maanta xam badan baa jirta oo waxaa la yidhi war qoladu waxay u socdaan malaha kursigaasay u socdaan oo danbay ka leeyihiin maagi hore waxaa la yidhi qabyo maxaa yidhahdeen qabyo xasan sheekh baa wuxuu yihi qabyo ninkeeda dhamaystira waxay ka dambaysiiyeen qabyo qabiilkeeda dhamaystir waxaa la yidhi axmed gurigaa ku jiraba wuxuu yahay malaha kursigaas rabaa inuu riixdo
moogtay xantu waa wax suuqa yaala waxaan rabaa inaan sheego haba yaraata ee wax ajandaha oo kursi nin ku fadhiyo inaan hagaajinno oo bidaano u noqonno oo aan saxno oo annagu kuwa kale u sheegay aan uga fiicnaana aan ahayn inaanaan socon waxaan rabnaa raalli ahaada haddaan hadalkeeda ku badiyey inay dawladdu ogaato oo xaq loogu leeyahay inay taageerto sabood garayso ogaato la socoto qaadato talooyinka iyo tawsiyaadka laga siinayo shayga asalka waa midkaas saaxiibaday waan wada hadli doonaa shirku ajanduu yeelan doonaa waa laga doodi doonaa waxaan uga doodaynaa waxaa la yidhi waxaa jirta hal eray yaa sharciga marna wuxuu noqdaa fadeexa marna wuxuu noqdaa nasaaix haddii maanta intaanu imaado aan idhaahdo wiilkaa iga soo horjeeda abshirow waxanaad samaysay dadka hortiisa oo kanaad tahay oo kanaad tahay oo kanaad tahay maxaa soo baxaya ninkii wuu xintamaya wuxuu leedahay uu ficiltamaya sababtoo dadka hortiisa ku fadeexadeeyay soo maa isla shaygii aan ku sheegayay haddii intaan keligii u yeedho qol isla gallaana walaadhe kufudhayo kuduugta waa timo weyn tahay sidaanaad tahay kanaa jira aan ku idhaahdo maxaa soo baxaya wuxuu u qaadanayaa at least waxay aan ku lahay inay iga ahayd wixii aan ku lahay inay ahayd waxa nasaa'ixa oo waanaa wuu qaadanaya wuuna ku qancaya waxaan rabnaa saaxiibaday waxaan anagu isu sheegayno aan isfeedhno aan wax kale isku nidhaano aan isnidhaana cabdiweli oo adaa khaldan war axmed oo adaa khaldan maya aw shariif baa naga sii khaldan war maya kanaa waxaysan alla ilaha qolada dawladda ah yaa khalad ka jiraayo waxaan iyo waxaan annagu aan isnidhaano laakiin inaanaan si fadeexada iyo si laftu ku jabaysa midna aanaan samaynin weeye ujeeddada rasmiga aan leena waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa waddankaani maanta xaaladda uu ku jiro wuxuu u baahan yahay inuu horay u socdo ee inuu dib u socdo uma baahno dib u noqod uma baahno steps iyo tallaabooyin baan soo qaadnay meelay soo mareen waxaan doonaynaa gogashaan waxa ka soo baxay inuu noqdo mid cid walba wax u taray waxaan doonaynaa gogashaan waxa ka soo noqday inuu noqdo mid ay ku wada hadlaan xukuumadda iyo dowlad goboleedyada madaxdooda oo mas-uuliyadda ugu badan ay ku dhacaysahay wax dhabo oo ay ku wada dhaqmaan iyo xeer dhabo isugu yimaadaan iyo wax midaysan oo ay ka wada hadlaan ay ka ambaqaadi kara waxaan u baahannahay inuu ka soo baxo waxa aan sheeganayna ma dhab buu naga yahay mise been buu naga yahay waxaa ugu horeeya war federaalkan aan sheeganayna ma dhab buu naga yahay mise waa been haddaanaan rumaysnayn aan ku dhaqmayno intii la fadhiisto oo institutionada ha fadhiistaan ha yidhaahdeen federaal ma fadow kuma jirno ma nihin dawlad santanaan nahay oo dawladdu intay xooggeeda dhisato faram saylac iyo meesha la yidhahda askaambooni baa u kala fog baan u malayn ayardee safka ha marto waa lagu dabafaraya muqtadiyan baan len hal imaan baan ogola hadday tahay waxaan ku heshiinay waa in dariiqiisa la maro oo laga run sheego laakiin inaan waxna rumaysnahay wax kalena sheegay sax ma noqonayso taa markaan gaadhno codkeeda iyo waxay noqoto xilligaasaan ka hadlayno waaga loo baahdo in waddanka federaal intii la bedelo dastuurka mid kale la qaato la isweydiyo afti la geliyo aynu gaadhno rag inaga soo horeeya waxaan keenay qaabka lagu bedeli karaana waa qaab u baahan tallaabooyin in hore loo qaato aada iyo aad ba waxaan ugu qanacsanahay saaxiibaday oo dhan aan ku wada hadalay aanan isku ognahay inaanan lafla jabinin waxaan ka hadlaynaa ay tahay dan waxaan xaq u leenahay maanta ciladaha dhacaya iyo khaladaadka jira iyo isteydyada waxa dhexdooda ka jira maanta galmudug bahay waxaan ujeedaa jubbaland bay wax ka jiraan walaalaha intay noo yimaadaan oo uu xaaf gogol dhigo ama shariif ama cabdiweli ama waale inay yidhahdaan arrinta jubbaland waa inaan xallino soos xaq maaha kabacdi arrintaa inay iyagu xalliyaan oo ayna u baahaninba meelkana inay gaadho oo maxay noqon forumkan aan leenahay oo hadduu ka soo baxo meesha isagana ku xallisan karna waxaa fudud shalay galmudug wixii ka dhacay oo kale waa wax caadiya oo aan xallin karno haddii roolka dawladda federaalka intay qaado culayska iyada ay naga qaado iyadu meel saarto fa ahlan wa sahlan haddii kale waxaan annagu ku filannahay oo aan xallin karin oon doonayna inaana xallino weli taa isteydyada marka arrintooda waxay abuuri kartaa waxa ama iyaga dhexdooda hadda koonfur galbeed oo kale oo aan
ستيت كان حدود كلنا هاي مركل الحدود كان سوي بيها لجري سيها لجري إنك سؤال يا مركل وضم مثلا سكوتر صار أو بالحياة شريف ما هذا هذا بل أنت أنا سكوتر سنة والله حجر قصع دارين عشان تهمي يركض بيحتاج للعناية مايا بعض إلى حجر كسوق شاء مايا يعني سؤال بقى مكان أنا يا مركز أساسا كرسومة وأنا وسقلان كرو يسصح كرو يسوحان كرو أو أنا سوء من كرو إنه وريبة استيدوا اليوم كودرس كلية صاحب هذا الجيل كل حين شلوا كرو وأنا حلين كرو الجيل هذا أنا مثلا ستون جيل واتن هراوي بركرة بعد بدين كهاي أنا وحكي حلين كرو سيو جاري كرو وعينتها أنت أصلا مركز السكوتر فردقاني حل بدن يوناك بدن بكية ما أنت الصومالي وحقوية الصومالية ما أنت حل فرشه وحقوية الصومالية ما أنت إنه قادة وح أي أباها الله إنه الدولة ذكر يدبر لقاد إنه قديه إنه كحالسان حكومة فضلانك أنا صاحب هذا كلا تشن حتى المكان كان لنا مثلا الله إيمان يسوع إيه هذا المشي اللي هو تجينا نقول بالمنزلة أب وين الدولة أقوسنا إن نوتي ماذا أو قري جودي أي مادة ما عينا كم ارتقاله إن نتوينه أو قري أنا جاي نتوينه والمسؤولين تناديين أنتوا واحد يأكلوا لكن ما شفته وحنا أما سنة هو حسن وحنا روا وندك إذا جاي سنة هي أنت فلذا ما هو شيء شركان دان صوماليات بكوتشرته مرحلة على ودك كوتشرة إلا يبحانوا بهانه waxaanu saxaafada isaga jawaabilayn inaan isor fariisano oo isu jawaabnaan u baahannahay inta yadan mas'uuliyiinta iyo waftiyada yadan inaanu ku doodno dastuurka dhexdiisa oo aanu isku qabanno shayga xaq u leenahay iyo ka fadlanka xaq u leeyahay man diyaarnahay waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mustacdiin ka mahad celiyo guud ahaan ka soo qayb galka iyo ajiibitaanka waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo madaxweyne Cabdiweli oo lahaa hindisaha هراي وقت يبدأون حاسس الشيخ محمود أو يسوي ملاحظ وكيمده والفدراليزم كيو سوي كلام أوليه باكرين عن قرع فارم صلى الله عليه وسلم إذا كان مع الله بعد رسيل شهيدا وقرع بالنقطة دارا أنا يوحنا نقول جهدا كلا قرع أبغبان العناك وكلا الهلية مسيا قام كذا وحنا دارنا عن كسر مسألة لكن إنه يندسها سيشرو أو حلا يسكوا يدين كلا وده كان ما أنت متشوفه أنا أحمد ستيت كان شوقي ما أنت مسؤول كاي ما دكتين قرين كذا واحد طون وده كان وحكوشرا حل ولا تش يسقرن يورتلاوه يكرر نور يسيرن ما ينقل المانتا حل عن إيميل أيه فكسيه وحنا نسكت أمرنا إلى كذا وحنا بعنا قلبنا بنويا ونوصل الشيء دورنا هدي لا إله هذا أجندوه وحنا قدر مرسول شهر ما ترى هذا موعدة ما ترى هذا موعد يعني كنت بقلال شيء بنوطال أنا بعنا إن أنا يدولة كولا حدد مني إنه قبل ما كان قبله وأنا درس معمولة وحكم كذا حي هذه قبل ما سنتي صاحب هذا وأنا بحياة وحارجينا يا إن شركة نقوشة وكل ما ذي ونقدر من تاريخه وحنا يانا دون صاحب هذا حالنا كسوي مادين يلول بنت هوست على بعض كذا هاي نقوشة وبدنا إياه الراحة إن شاء الله خير بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته